saddexaad nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo akhlaaqda inteeda wanaagsan inagu dhiirigelinaya ayaa wuxuu yidhi waxaan u damaano qaadayaa jannada xaggeeda hoose guri ku yaala qofkii iska daaya muranka iyo khilaafka xataa hadduu gar u leeyahay. waxaan kaloo u damaano qaadayaa guri jannada bartankeeda ku yaala qofka beenta iska daaya xataa hadday kaftan ka tahay. waxaan kaloo u damaano qaadayaa guri jannada xaggeeda ugu sarreysa ku yaala qofka uu wanaagsanaato akhlaaqdiisu. waxyaabaha qofka muslimka noloshiisa iyo gurigiisaba barakada ka qaada waxaa ka mid ah xusitaan la'aanta aanu ilaahay xuseyn. nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah hadduu gurigiisa markuu galo iyo markuu cunayaba ilaahay xuso shaydaanku wuxuu idhahdaa hoyna idima sugnaan cuntana idima sugnaan. hadduuse gurigiisa galo isagoon ilaahay xusin shaydaanku wuxuu idhahdaa hoy baad hesheen. hadduusan ilaahay xusin markuu cunayana shaydaanku wuxuu idhahdaa hoy iyo cuntaba waad hesheen oo wuu la wadaagaa. sida ay diinteennu u karaamaysay haweenka ay muhiim uga dhigtay nabigu wuxuu tilmaamay xadiis iyaga khaas u ah oo ay jannada ku geli karayaanuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam gabadhu haddii ay tukato 5 salaadood bisheeda ramadaanna ay soonto sawjkeedana ay adeecdo xubinteeda tarankana ay doorto abaalmarinteedu waxa weeye in maalinka qiyaamaha lagu yidhaahdo jannada albaab allaale albaabka doontid ka gal. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka markuu eedaanka maqlo yidhaahdo allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiilata walfadiila wabacathu maqaaman maxmuudan aladii wacadta. ducada adkaarul eedaanka ee ku qoran xusn muslimka waxa uu ka mid noqdaa kuwa aan u ergeeyo ee aan u shafeeco qaado maalinka qiyaamaha. kitaabka ilaahay aayadda ugu fadliga badan uguna weyni waa aayatul kursiga. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in qofka akhriya aayatul kursiga salaad farale kadib in aysan jannada ka xigin inuu galo geeridiisa maahaane. joogtaynta aad joogtaysid inaad aayatul kursiga akhridid 5 salaadood kadib ilaahay wuxuu kuugu abaalgudayaa in jannada ay kaa xigto uun geeridaada. nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka difaaca sharafta walaalkii iyadoo lagu xamanayo meel uuna isna joogin ilaahay wuxuu waajib iskaga yeelay inuu qofka naarta ka xoreeyo. difaacista aad difaacdid sharafta walaalka ama walaasha iyadoo meel lagaga dhacayo isna uusan joogin haddaad tidhaahdidoo keliya hebel inaga daaya ama heblaaye inaga daaya ayaa abaalmarintaadu waxay noqonaysaa inuu ilaahay adiga naarta uu kaa xoreeyo. anas bin maalik isagoo ka sheekeynaya akhlaaqdii wanaagsaneyd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo edaabtiisii ayaa wuxuu leeyahay nabiga cunto aan u keenay weligii waxba kamuu sheegin weliba 10 sanana wuu shaqaynayay. cuntada aan u keeno haddii uu ka helana wuu cuni jiray haddii uu diidana wuu iska dayn jiray. innagana waxay nala habboon in dhaqankaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu kula dhaqanno cidda inoo khidmaynaysa weliba ay bil ramadaanna lagu jiro oo haddii ay tahay ama oori ama hooyo ama walaal ama qof shaqaalo oo afura inoo samaynaya. nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah marka uu dhinto camalkiisa oo dhan wuu go'aa 3 maahaane oo 3daas waxay uga dhigan yihiin sidii uu nool yahay oo kale ayaa ajarkooda lagu qoraa. 3daas waxay kala yihiin sadaqa jaariya oo masaajid ama madrasad oo kale ugu jirto oo u socota ama cilmi uu cid baray oo lagu anfaco ama walad saalaxa ubad saalaxoo u soo duceeya mar walba. faa'iidooyinka ay leedahay qofka muslimka markuu xanuunsanaya in la soo booqdo nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ina tusinaya wuxuu yidhi hadday dhacdo qof muslim inuu soo booqdo walaalkii oo xanuunsanaya uu subax u tago waxa u duceeya 70,000 oo malag ilaa uu gobolka u dhaco. haddii uu fiid soo booqdana 70,000 oo malag ayaa u duceeya ilaa intuu waagu uga baryayo. weliba intaana kuma ekay waxa ilaahay siiyaa beer jannada ku taalla ayuu siiyaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka hal maalin ilaahay dartii u sooma isagoo rabbi raalli aanshihii iyo ajar kaga doonaya ilaahay naarta wuxuu ka fogayaa wejigiisa masaafad la eg 70 dayrood oo u dhiganta 70 sano. halka maalin one single day aad ilaahay dartii u soontid ayaa wuxuu abaalmarintaadu noqonayaa in naarta lagaaga fogeeyo 70 sano in la eg. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala 3 buu idinla jeclaystay oo raallina idinkaga noqday 3na wuu idinla naco wuu idiin diiday. ilaahay wuxuu idinla jeclaystay subxaanahu wa tacaala inaad caabudaan oo aydan cidna la shariik yeelin xadhiggiisana aad dhammaantiin wada qabsataan oo aydan kala tegin. ilaahay wuxuuna idinla nacay subxaanahu wa tacaala ku tiri kuteenta. waxaa kaloo idinla nacay su'aal badnida aan faa'iidada lahayn. waxaa kaloo idinla nacay lacagta oo la daadiyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ducada uu qofka muslimka ay u duceeyo walaalkii markuu ka maqan yahay inay tahay duco maqbuulo oo la aqbalo. madaxiisa agtiisa waxaa ahaaday malag loo xil saaray oo mar walo qofkaas walaalkii waxsan ama wax wanaagsan uu ugu duceeyo
malagaasina isagoo u ducaynaya odhanaya aamiin allah ka aqbalo adigana intaa lamida allah ku siiyo. 3 dardaaran oo nabigeena siiyay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay kiina ilaahay si dhaba u rumaysan iyo maalinka qiyaamaha khayr ha ku hadla ama ha iska aamuso. kiina ilaahay si dhaba u rumaysan iyo maalinka qiyaamahana ha wanaajiyo oo ha sooro martidiisa. kiina ilaahay si dhaba u rumaysan iyo maalinka qiyaamahana ha wanaajiyo oo ha karaameeyo jaarkiisa. in kamid oo khilaafaadka iyo isqabsiga iyo deganaanshiyo la'aanta ka dhaxaysa dadka walaalaha ee guryaha wada degan iyo diiqadaha lagu dareemo guryaha waxa sabab u ah shaydaanka. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay oo uu yiri guryaheena ha ka dhigin xabaalaha oo kale. shaydaanku uu ka cararaa guriga lagu akhriyo suuradda al-baqara. innagana waxaynala gudboon inaynu guryaheena ku akhrino suuradda al-baqara si aanu shaydaanku deegaan inoola noqon oo inoola degin. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naarta ma galo qof cabsida ilaahay daraaddeed la ooyey ilaa ay caanuhu ku noqdaan candadii. sida ayna suuragal u ahayn inay caanuhu ku noqdaan meeshii ay ka soo baxeen ay suuragalna u ahayn qof ilaahay dartii cabsidiisa la ooyey ama dembi uu galay la ooyeyna inuu naarta galo. qiiqa jahannama iyo boodh ka soo raacay qof jihaad uu ilaahay dartii ugu baxayna weligood ma kulmaan. nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam islaam wanaagga qofka iyo diinwacnidiisa waxa muujiya ee lagu garto waxaa ka mid ah inuu iskaga tago wixii aan khusayn qofka muslimka ah ilaa uu iskaga tago waxyaabaha maalayacniga ee waxa aan dantiisa iyo diintiisa iyo adduunyadiisa toona aan anfac u lahayn ilaa uu iskaga tago diintiisu uma dhammaystirna. qofka muslimka waxa laga yaabaa adduunyada marka uu shaqaysto muddo 20 sano gaadha ee uu tabco inuu adduunyada guri ka dhisto ama uu jago yar ku yeesho at least. diinteenana fudeedkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in qofka salaatu duxada 4 ragcadood tukada oo 2 sunno ah salaadka duhurka horna eedaanka yaqiinka dhexdooda 2 sunno tukada in ilaahay jannada uga dhisayo guri. qofka raba in uu jannada si nabadgeliyo oo dibliiyo ku galo ha fuliyo dardaaranka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu yiri dadow salaantana faafiya kiina gaajaysanay baahanna quudiya qaraabadiinana xiriiriya dadka hurdana tukada jannada rabbigiina waxaad ku galaysaa nabadgeliya. bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan horowgaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra.